نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeenna maanta waxay ku saabsan tahay dooddii dhex martay nebi ibraahim calayhi salaam iyo nimruud boqorkii kibirka iyo isla weyniga badnaa. dadka ku xeesha dheer abtirsiinada iyo taariikhda waxay sheegaan in boqorkani uu ahaa boqorkii baabilyoon ka talin jiray, waa halka maanta loo yaqaanay ciraaq. waxaa lagu magacaabi jiray nimruud bin kancaan bin koosh bin saam bin nuux. hase ahaatee taariikhyahanno kale waxay sheegaan in magaciisu uu ahaa nimruud binu faalex binu cabir binu saalix binu arfakshad binu saam bin nuux. wuxuu ka mid ahaa boqorradii waagaasi dunida ka talin jiray, waxaana jiray 4 boqor oo xukumayay arlada oo dhan. 2 ka mid ahaa waxay ahaayeen mu'miniin, 2 kalena waxay ahaayeen gaalo. 2 mu'miniinta waxay kala ahaayeen dulqarnayn iyo sulaymaan, 2 kalena waxay kala ahaayeen nimruud iyo bukhtinasar. waxaa la sheegaa in nimruud uu arlada maamulayay muddo ku dhow 400 oo sano, isaga oo noqday qooqaa isla weyn, falaaga ah oo kibir badnaa. markii uu nebi ibraahim ugu yeeray caabudidda allah oo keliya oo aan lahayn wax shariig ah, waxaa nimruud dilay kibir iyo jaahilnimo, heer uu ku dooday inuu isagaba yahay rabbiga dunida maamula. markaasuu nebi ibraahim ku yidhi, rabbigay waa kan bixiya nolol oo sababa dhimasho ama geeri. markaasuu nimruud yidhi, aniguba waxaan bixiyaa nolol oo sababa geeri. intaas kadib nimruud wuxuu dalbaday in loo keeno 2 qafood si uu u dilo. intaas dabadeed wuxuu amar ku bixiyey in la dilo mid ka mid ahaa raggii, oo halkii kalena waa uu sii daayey. markaasuu nimruud ku yidhi nebi ibraahim calayhi salaam, soo ma aragtid inaan mid dilay midna nolosha aan ku sii daayey? xaqiiqdii tanina waxay ahayd dood ka baxsan daliilkii laga sugayay nimruud, waxayna ahayd sheegasho caqli xumo ay ku dheehan tahay. nimruud wuxuu mar kale nebi ibraahim ku yidhi, daliil kale ma haysaa? markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam keenay daliil kale oo caddaynaysa jiritaanka alla weyne, si uu meesha ugu saaro sheegashada nimruud ee ilaahnimada ah. wuxuuna ibraahim calayhi salaam ku yidhi nimruud, waa allaah kan sababa inay qoraxdu ka soo baxdo bariga, ee adigu ma ka yeeli kartaa inay ka soo baxdo qoraxda dhanka galbeedka? qaala ibraahiimu fa inna allaha ya'tii bishamsi mina almashriqi fa'ti bihaa mina almaghribi fabuhita alladii kafar. ibraahim calayhi salaam wuxuu nimruud tusinayey in qoraxda ay u leelan tahay inay ka soo baxdo maalin kasta xagga bariga, oo allaah sidaasi amray, waana abuuraha wax kasta. haddaba wuxuu ibraahim ku yidhi, haddii aad nolol iyo geeri bixiso, waxaad ka yeeshaa qoraxda inay ka soo baxdo dhanka galbeedka, waayo kan nolosha iyo geerida bixiya wuxuu samayn karaa wax waliba. haddaba ka keen qoraxda dhanka galbeedka haddiiba aad ilaah tahay. markaasuu nimruud hadalkii gabay oo afkiisaba juug ka soo bixi weysay, isagoo afka taagay, maxaa yeelay waaga ayaa ku baryey. waana halka uu alla weyne qur-aankiisa ku leeyahay, sidaas baa looga adkaaday gaalkii dhanka hadalka, allana ma hanuuniyo qoomka daalimiinta ah. fabuhita alladii kafar wallaahu laa yahdi alqawma alzaalimiin. haddaba taariikyahanadu waxay sheegaan in sheekadaani ay dhex martay ibraahim iyo nimruud markii ibraahim uu ka soo baxay dabkii lagu tuuray. marna markaas ka hor ma aysan wada kulmin ibraahim iyo nimruud. sida la soo wariyey, nimruud wuxuu gacanta ku hayey dhammaan badeecadaha ay dadku u baahnaayeen,
oo dadka waxay u tegi jireen nimruud si ay waxay u baahan yihiin ugu soo helaan. Maalin maalmaha ka mid ahayd ayuu Ibraahim dadkaasi iska raacay isaga oo doonayay inuu wax ka soo helo. waana maalintii ugu horeysay ay wada kulmaan Nabi Ibraahim calayhi salaam iyo Nimruud. Ibraahim calayhi salaam maalintaasi wax raashin ah lama soo siin oo waa loo diiday isaga, markaasuu ka soo laabtay. Markii uu gurigiisa u soo dhowaaday ayuu wuxuu tegey meel ay caro ama ciid ay tuurnayd, markaasuu labadii kiis uu sitay ka buuxiyey ciiddii, isaga oo naftiisa ku yidhi, waa in aan ku maaweeliyaa reerkayga oo isaga dhigaa qof wax soo helay. Markii uu gurigiisa yimid wuxuu iska dhigay labadii kiis ama labadii jawaan ay ciidda ay ka buuxday. Wuxuu dareemay daal fara badan, markaasuu iska seexday meel ka mid ahayd gurigiisa. Intaasi kadib xaaskiisa Saarax ayaa u baxday inay soo eegto labadii kiis wixii ku jiray, waxayna ka heshay iyaga oo raashin badan ay ka buuxaan kiishashkii ama jawaanadii. Markii uu Ibraahim hurdada ka soo toosay ayuu wuxuu arkay raashin, markaasuu xaaskiisa weydiiyey, maxaad ka samaysay raashinkani ama halkee ayaad ka keentay? Waxay ku tiri, waa waxaad adiga inoo keentay oo kiishashkaasi ku jiray. Markaasuu Ibraahim gartay inay tahay risiq ka yimid xagga Alle. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا